الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. سوماليلاند ha noolaato. Somaliland ha noolaato. Somaliland ha noolaato. waxaa sharaf inoo ah inuu aynu soo dhaweyno madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland iyo waftiga ballaaran ee uu hogaaminayo ee heer qaran. waxaanu qiraynaa haddaanu nahay odayaashii ka soo horreeyay madaxweynaha ama wasiiradii in ay reer Ceerigaabo hadleen oo ay hadleen inay yihiin dad isku duuban oo ku wada nool si nabad ah oo gobonnimo iyo sharaf iyo ixtiraam muujiyay. waxaan isleenahay reer Ceerigaabo wixii laga sheegi jiray waxba kama jiraan. soo sidaa maaha. Ceerigaabo waa dad wada nool ehela nabad ku wada nool isku meel u jeeda waqtiga nolosha ka wada hadhayna inay wada qaabeeyaan diyaar ah. waxaa noo dheeraada madaxweyne hal qodob baan anagu xusuustaa. qodobka aan xusuustaa waxa weeye Ceerigaabo marka loo soo safro ee Hargeysa laga soo dhaqaaqo waxaa la soo socon jiray muddo dhowr iyo 10 saacadood 14 saacadood 13 saacadood ayaa ilaa halkaa loo soo socon jiray. maalin dhaweydna wuxuu ii sheegay intuu ka quraacday Ceerigaabo inuu Hargeysana ka qadeeyay intuu halkan ka quraacday. waa barwaaqooyinka iyo horumarka xisbiga kulmiye. soo sidaa maaha. maalintii dhaweydaan idinkaga yimid madaxweyne Burco waxaan u soo socday 3 saacadood iyo 45 daqiiqo yaan Burciyo Ceerigaabo u soo kala socday. aad bay u taabatay qalbigayga iyo maskaxdayda horumarka ka dhacay ee aan intaa ku soo socday. wuxuu ka soo jeedaa maskaxda iyo muruqa labadii madaxweyne kala dambeeyay ee kulmiye. soo sidaa maaha. reer Ceerigaabo imisuu u socdaa waad garan kartaa. barwaaqo iyo bashbash baan idin rajaynayaa. waxaan idin leeyahay nabad aynu ku wada noolaano xisbiga kulmiyana aynu dooranno. aad iyo aad baan idin salaamaya.